rag waxaan u sheegaa hadday arkaan gabadhi xiriirka la lahaayeen ama xaaskoodii oo dabeecadda isbedeshay walaal macaan dabeecadda markay isbedesho oo aa aragtay gabadhi inay kula dagaalamayso yacni gabadhi dagaalkeedu ma ahan inay kula dagaalamayso gabadhi aday ku jeceshahay waxay kaa weysay sidii hore aad ahaan jirtay isbedel bay kugu aragtay markuu waxay samaynaysaa in difaac gabadhi ay gasho ay ogaato waxa kaa qaldan waxa iyada ka qaldan way kula dagaalamaysaa maxaa dhacay maxaasaan 120 su'aal bay ku weydiinaysaa oo ah in aad u cariftid in qaladka xaggeeda uu ka yimaaday iyo qaladka inuu xaggaaga ka yimaaday adigu marka uma sheegaysid qaladka meeshuu ka yimid because qaladka adiguuba kaa yimidbo qaladka maadaama adigu uu kaa yimaaday waxaad u gelaysaa waad buuq badan tahay waad isbedeshay balaa gabadha marka ku jecel markaad isbedeshid iyana way isbedelaysaa dariiska isku bedelaysaa marka kuu sheegaa sideebaa gabadha ee xasilooni ay u dareemaysaa markii adiga xasilooni ay kaa weysay sideebaa adigana xasilooni aad oga dareemaysaa ama aad oga helaysaa haddii gabadha shalay toole wanaaggaa wanaaji jirtay maanta aada wanaajinaynin sideebaad xasilooni gabadha aad oga helaysaa iyo deganaansho haddii adiga had luqluq aad maraysidoo iyada aada ku ekeen because you know what markaad ruux kale aad duls wadid oo aad noqotid noloshaada meel kalena inaad la qaybsatid waxay kugu adkaanaysaa gabadhan ina full attention aa siisid gabadhii markii waxay dareemaysaa in arrintu ay isbedeshay marka walaal macaan gabadha ha eedaynin gabadha dhibaatada adigay xaggaaga ka timaaday gabadha haddii adiga dhimbildaba aada ku qaban lahayn gabadhu ma ay holacdeen gabadha adiga haddaadan dulmi lahayn gabadhu buuq kuguma ay safurteen n wantinaan kuu sheegaa intay kula dagaalamayso ay kula xisaabtamayso ay kula gorgortamayso kula baayactamayso gabadhu waa intay ku jeceshahay oo wadnaheeda baa qayb ku leedahay meel baad kaga fadhidaa qalbadeedii baa meel kaga fadhidaa ee ha u malaynin gabadha inay tahay gabar xun shalay toole markaad soo guursanaysay gabadha hadday xumaan lahayd ma aad soo guursateen ee gabadha shalay way wanaagsaneed laakiin maanta xumaatada adiga xaggaaga ka timaaday you need to fix it waana is ogsoonahay ragga Soomaaliyeed 100% waa dhalnay wayna dhaleen een way nala dhasheen een waana u dhaxnay so